السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada kanaalkeena waxaan kaga hadalnaa buugaagta inagoo soo koobayna oo isla markaas soo qaadanayna nuxurka iyo ulajeedada loo qoray buuga hadaba saaxiibayaal muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa buuga caanka ee loo yaqaano Atomic Habits waxaana qoray qoraaga caanka ee loo yaqaano James Clear hadaba saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan kaga hadli doonaa san hore u soo sheegnay habka ugu wanaagsan aad ku kasban karto caado wanaagsan una burburin karto caado xun taasoo ku daashatay hadaba intaynan mawduuca u guda gelin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like noo saarto page-kan aad subscribe noo dhahdo sidoo kale aad u share garayso saaxiibaad ogtahay inuu caadooyinka la dhiban yahay hadaba qoraal ayaa qodobka koobaad waxa uu naga dhigay The Power of 1% Improvement oo macnaheedu yahay awoodda in aad nafsadaada hormariso boqolkiiba hal hadaba konseptiga in aad awooddaada ama nafsadaada hormariso boqolkiiba hal ayaa James uu focuska ku saaraya in aan horumarka iyo guusha hal mar aan la wada gaadhin ee macnaheedu tahay in step by step wax walba u soconayaan oo aysan ahayn inaad isla markaaba hawsha intaad bilowdo isla markaaba aad gabagabeynayso oo aad guul ka gaadhayso balse ujeedada u weyn ayaa waxa ay tahay in aad maalin kasta ama waqti kasta aad hormariso nafsadaada boqolkiiba hal waa inaad samaysaa wax yaroo isbedela nafsadaadana ku samaynaya saameyn aad u ballaaran waxaana la sheegaa oo aynu ognahay inay buurtu tahay dhagaxaan yaryar oo isku tegay oo halkaasna ay ka samaysmeen buuraadu weyn qodobka labaad qoraagu ka hadlay ayaa waxa uu ku sheegay amaba ciwaanaga dhigay make it obvious oo macnaheedu yahay isbedelada iyo waxyaabaha aad ku dhaqmayso si aad horumar u gaadho ama noloshaada uga beddesho waa inaad ka dhigataa wax iska caadi ah ama normal ah oo noloshaada ka mid ah ama qayb ka ah si ay kuugu sahlanaato inaanad wax weyn u arkin tusaale haddiiba aad rabto inaad jiim bilowdo oo aad u baahan tahay habkii aad rutiin uga dhigan lahayd ama si dheeli aad u samayn lahayd habka ugu fudud ee aad ku dabaqi karto ayaa waxa ay tahay in salaada subax markaad ka soo baxdo aad naftaada ku dhiiriso ama aad u sheegto in markaad salaada ka soo baxdo jiimka aado taas waxay kuu sahlaysaa in aad wixii rootiin ku noqdo oo marka aad soo kacdo isla markaa salaada aad tukato kadibna aad jiimka aado oo rootiin si dheeli aad u samayso halkan waxaan ka fahmaynaa in haddii caadadaad hore u lahayd aad ku dabaqdo mid cusub oo hadda rabto inaad dhisato ay kuu sahlanaanayso in aad la qabsato caadada cusub aad dhisanayso oo aad markaana isla horumar ka gaadhayso ama ay saa kuugu hirgelayso caadadaasi qodobka saddexaad ayaa waxa uu leeyahay ama ciwaan uga dhigay qoraagu crucial role of identity oo macnaheedu yahay arrinta kuu sahlaysa in aad caado wanaagsan samaysato in aad focus ka saarto ama diiradda aad saarto qofkaad rabto inaad noqoto kadib markaad caadadaas la qabatinto halkii aad culayska saari lahayd ama diiradda saari lahayd hadafka aad rabto inaad gaadho haddaba haddii aan arrinkan qeexno matalan waxaad rabtaa inaad jiim bilowdo waxaanad rabtaa in aad iska jarto 100 kiilo ama 40 baan dhahna halkii aad dhihi lahayd waxaan rabaa inaan iska jaro 40 kiilo in aad tiraahdo waxaan hay qof raba inuu caafimaadkiisa horumariyo ama naftiisa ka warqabo si uu caafimaadkiisu u wanaagsanaado haddaba haddii aad la barbar dhigto ama la align garayso habitkaaga identity-gaaga identity waxa noo ah inaan caafimaad helno habitkeena waxa weeyaan inaan orodno ama jiimkaan aadno ayaa waxaanu leeyahay markaad labadaas arrin isku keento ee isku align garayso waxaad abuuraysaa a powerful psychological shift taasoo kuu sahlaysa in aad la jaan qaado isbedeladii aad waday ama aad samaynaysay oo ahayd in aad jiimka maalin walba aado soo isbedeladaada waa inaad ku align garaysaa identity-gaaga iyo qofka aad rabto inaad noqoto pointiga afraad ee aan rabto kaga hadlano ayaa waxa uu yahay mastering art of habit reversal qoraaga ayaa waxa uu leeyahay markaad rabto inaad caado xun ka takhalusto waa inaad ogaataa wadooyinkaad u marto caadooyinkani si aad u samayso iyo waxyaabaha aad ka helayso ama riwaadhiska aad ka helayso markaad waxaan ku dhaqanto kadib markaad ogaato caadooyinkaasi dhibaatada ay kugu hayaan iska bedel oo ku bedel kuwa waxtar leh tusaale haddii aad rabto inaad cunto cunno aan faa'iido lahayn ama borotiin ku lahayn sidoo kale aad rabto inaad jirkaaga dhisto qoraaga markaa wuxuuna leeyahay identify the trigger oo waa inaad aqoonsataa waxyaabaha diboominkaaga kicinaya oo markaad cunadan wasakhda cunto maxay noqonaysaa riwaadhkaad helayso ama faa'iidada aad helayso oo riwaadhka markaas waxa uu noqonayaa temporary satisfaction
waxaanad helaysaa qanaaco amaba in aad ku faraxdo shaygaasi muddo yar weliba muddo kooban isla markaas muddadaas markay dhammaatana aad xaaladii ku noqonayso hore. qodobkani waxa uu koobsanay ayaa waxay tahay inaad ogaato waxaa kugu qasbaya in aad samayso caadadaasi noocay doontaba ha ahaatee. dhanka kale waa inaad ku xisaabtantaa waxaad riwaad ahaan u helayso amaba aad u helayso faa'iida ahaan markaad caadadaas ama waxaas ku dhaqaaqdo ee aad samayso. tana waa inaad isku daydaa inaad daawadiisa raadiso, matalan inaad iska dhaqaaqdo, aad xoogaa yara lugayso, in aad waxyaabo ku ilowsiinayo aad samayso. muuqaalka haddii aad dhammaadka nala soo gaadhay, sharaf ayay noo tahay saaxiib nagu soo biir barteena saaxiib nagula noqo si aan wax u kala faa'iidaysano.